بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، هو العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. إن للموت لسكرات. meydku wuxuu wataa sakaraad xanuun badan. nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ayaa wuxuu ka soo laabtay baa la yidhi janaase nin saxaabadiisa ka mid ah oo ay soo aaseen. guriga marka uu soo galay ayuu arkay caaisha oo madaxa xanuunaya oo odhanaysa waa ra'saa, alla madaxa aad ii xanuunaya. allaahu akbar. rasuulkuna wuxuu yidhi bal ana waa ra'saa, caaishay anaa kaa daran. madax xanuunka ani ayaa kaaga ka daran ayuu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam. intaa kadib nebiga waa soo dhacdhacayey oo xanuun baa ku sii kordhayey. mararka ka mid ah baaquli biyo ku jira inta uu dalbaday ayuu gacanta geliyey, madaxa ayuu marina, xanuunkuu rabaa inuu isaga qaboojiyo sala allahu calayhi wasalam. laa ilaaha ila allah, inna lilmowti lasakaraat. alla maahine alla kaloo xaqnimo lagu caabudaa ma jiro. ilaan meydku sakaraad xanuun badan buu wataa, sakaraad cajiib badan buu wataa. wajaa'at sakratu lmowti bilxaqi dalika maa kunta minhu taxiid. sakaraadkii meydkaa yimid waana waxaad wax badan ka leexleexanaysay. sakaraadku waa dhib badan yahay, sakaraadku waa xanuun badan yahay. qofka inuu jannada galo 9 buurood baa ka xigtaa la yidhi, ta ugu sahlanna waa sakaraadka. allaahu akbar. canuguu awoowe u ahaa nebiga, gabadhiisa zaynab ay dhashay ayaa muqadamaadkii sakaraadkii geerida soo koray. zaynab waxay tiri aabbahayiigu waca ha ii yimaado, ku yar oo ani aan dhalay. qadixtudir waa lagu soo xaadiray. nebiga fariintii baa loo sheegay sala allahu calayhi wasalam. wuxuu yidhi inna lilaahi maa akhada walahu maa actaa. ilaahay waxa uu bixiya asagaa iska leh, waxa uu qaatana asagaa iska leh. shay walbana alla agtiisa ajal musami ah oo la magacaabay ayay ku leedahay. ha sabirta gabadhayda, hana ajir xisaabsato. laya'tiyannaha bay soo tiri, wallaahi baan ku dhaartay aabbahay waa ii imaana, aabbahay ii yimaadee ayay jirtaa. markay gabadhii dhaaratay nebigu waa u soo kacay. usaama ibnu zayd, mucaad ibnu jabal, ubay ibnu kacab, rag noocaasaa la socday. subxaanaka yaa kariim. rag sharaf leh ayaa la socda, ciidan qiimo badan baa la socda, saraakiil heer sare ah oon wax billiqaysanin, aan dadka dhicin, aan xaaraan qadan baa la socota. wuu soo baxay nebiga sala allahu calayhi wasalam. mar allaala markuu soo galay qolkii canuga ku sakaraadayey, nebiga kii yaraabaa loo soo dhiibay, markaasuu dhabtiisa ku fadhiisiiyey. allaahu akbar. dhabtiisuu ku fadhiisiiyey. nafta canuga waa qacqaclaynaysay.
nafta canuga kor intay aaday hoos u soo noqonaysay. nafta canuga waxaad u malaysaa dhawaaqa ka soo baxayo 5 baad moodaa maqaar adkaaday oo lagu istaagayo oo kale. walaalayaal, nebiga markuu saa u eegay canuga xaaladiisa uu arkay, waa xamili waayey culayska canuga saaran, waa iscelin waayey culayska canuga saaran darteed. fafaadad, waxaa daatay, waxaa soo qubtay caynaah, nebiga labadiisa indhood biyihii ku jiray. nebiga waa ooyey sala allahu calayhi wasalam. rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxa indhihiisa biyo ka keenay waa waxana sugaya walaalayaal. rasuulka indhihiisa waxa biyo ka soo daadiyey waa wax dadka sugaaya, ay u diyaar garoobi la'yihiin, ay khayrka iyo wanaagga u samayn la'yihiin, oo fisqiga iyo xumaanta ay ugu jiraan. waxaana sugayaa nebiga indhihiisa biyo ka keenay. cabdiraxmaan ibni cawf baa yidhi, wa anta yaa rasuula allah, adimaa oynaya rasuulkii ilaahayo. wa anta yaa rasuula allah, adiga ma ooynaysaa, annagana oohinta ma noo diidaysaa? yabna cawf, ina haadihi raxma buu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam. waxaan aad u jeedda waa raxmad, waxaan aad u jeedda waa naxariis. ilintan iyo biyahan indhahayga ka socdaan raxmad waaye. rabbi wuxuu u naxariistaa addoommadiisa arraxamaa. naxariistii xaggay naga aaday maanta? naxariistii xaggay naga aaday maanta? gaari gadoomay oo rogmaday yaan maalin dhexdaa arkayey. dadkii u gurmaday qaarkood jeebka meydkay baaranayaan. laa ilaaha ila allah. jeebka meydkay gacanta ugu jiraa. subxaanaka ya raxiim. yabna cawf, ina haadihi raxma, raxmad waaye mida ilaahay uu yeelo qofka uu doono qalbigiisa. qabriga korkiisa wax lagu xamanaa, qofkiina waa la aasayaa. sigaaraa lagu dul wataa, waa qabrigii korkiisa. jaaduu ku cunaa, waa qabriga korkiisa. ayna raxma? ibna cawfow, tan naxariis waaye. ilaahay baa qofkuu doono siiya, addoommadiisana kuwa raxmadaa loo raxmadaa. ina lilmowti la sakaraat, meydka sakaraad xanuun badan buu wataa, sakaraad cajiib badan buu wataa. ilaahay subxaanahu wa tacaala qofkuusan uga maciinin, qofkuusan uga gargaarin, qofkuusan u khafiifinin, wax qiimaa uu leeyahay ma jiro, wax wanaagu allaagtiisa ku leeyahay ma laha. inkastoo dadka gobol ka mid ah ayagoo saalixiin ah oo wan wanaagsan ilaahay waxoogaa uusan ugu adkaynayo, waxaa la rabaa isagoo nadiif ah oo hufan, dembi wax yar ah aan wadan, inuu ilaahay hortaga subxaana wa tacaala. inuu ilaahay hortaga subxaana wa tacaala. xusuusta macmacaan gooyaha macmacaan gooyaha xusuustiisa badiya. meydkaa loola jeedaa. macmacaankuu dadka ka gooya, guryaha ayuu qaraabiyaa, qubuuraha ayuu camiraa, dumarka ayuu asay u saaraa, carruurta ayuu yatiimo ka dhigaa, hooyooyinka ayuu garoobeeyaa. waa meydka xusuusta buu leeyahay. laa ilaaha ila allah, ina lilmowti la sakaraat. meydka sakaraad buu wataa, cajaa'ib badan oo xanuun badan, aad iyo aad markaa u adag. dadkii salafkee naga horeeyey markay geeriyoonayaan badankoodu way ooyn jireen. sababtan haddii la weydiiyo, sababa aad iyo aad u qurux badan ayay ku jawaabi jireen. abuu hurayraa sakaraaday, waa ooye. maxaad la ooynaysaa baa la yidhi. wuxuu yidhi, waddada aan ku socdo dheeraanteeda iyo sahayda aan wata yaraanteeda la ooyaya. jidka geerida ama aakhira loo maro waa safar baciid ah. sahay baa loo qaataa. watasawaduu fa ina khayra zaadi taqwaa. sahay qaata, mid la qaatana alla ka cabsiga u fiicanee u khayr badane. maxaan wadanaa maanta?
maxaan rabbi la hortagnaa maanta maxaan ilaahay la hor istaagaynaa maanta wejigabax baan noqon doonaa in badan oo annaga naga mid ah rabbi ha naga badbaadiye markaan ilaahay hor istaagno walow tara إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون هذا أرك الله رسولك يا الله ولو ترى إذ المجرمون حل قدم بيلياشا مصوم ياشا دينت الله كوكو عياري حجاب ديدياشا حق ديدياشا هذا أرك له إذ المجرمون وقت أي ناكسوا رؤوسهم مدحوذ أي كفور رنيان عند ربهم قرب أسوق ذكران مدحوذ إلهي ما إيجي كران شرف دردوذ قيمة إي ونقمله ودليال ودليال أن دنبي كدالين ودليال أن دين تراعين ودليال أدونك الراعي ودليال خيرك إي ونقلقو كريوايي ربي بيهرتاقيين مدحوذ وفوررا هصو قل الله ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم حقي جوغان عند ربهم ربنا واي أرهذوذا ربنا أبصرنا أرقنا نارتي وسمعنا مقلنا يقوحيذا فرجعنا نقعدها نقلين دبنو عدها نوردين قضالنا نقها نقو عذاب فرجعنا محيقة بنيان هدي لعليو نعمل صالحا عمل في عنا سوق بصنينا وسومينا وصلاضينا وزكينينا وحجنينا واستوسنينا ورانك نغرنينا وحجابنينا عربكنا إلالينينا نعمل صالحا إنا موقنون يقيبان أرقني يقينا أكو جدنا ما أنت لا إله إلا الله إن للموت لسكرات قعدت سأقلنا بيها النبي وجهوا مرنا صلى الله عليه وسلم أدوكو فاروق ربا أدوكو كتقي ربا حنون باهايا إلهي بقول يا سبحانه وتعالى أيضا صأي جرتو يوهدنا كفكر يا النبي صلاة دي ملتو كذي dadka ma ka bixin salaada qalbigeenaba ma soo gasho annagoo caafimaad qabna annagoo xayi ah annagoo xoog lahayba qalbigeenna soo geline xilligaa yaa xasuusanaya ilaa qofkuu rabbi u raxmaday maaane caasho ma la tukaday indhuu isku qabana koombada biyuhu madaxa marina laa ilaaha ila allah inna lilmowti lasakaraat ayuu leeyahay caasho salaada ma la tukaday laa ولو سبويا أذيك دوريا صحابة أدو جعلها إنه أبحو أدو جعلان لها إنه هر استاغو أدو جعلان لها إنه دجي صحابة ذيسة أي قلبي كيف رحسنيهين نبي وإذ ينسوا الصعداء بإسليهين أساقين حنونا انتهاي هل كان بوجيفا وإستاغا ودعيا وإستاغا الباب والربا إنه كسيبحو صحابة أتقو دجي استاغو كدعيا الله أكبر واستاجا إنه ضدك تجيو الربا استاجوا كالدعاء سبحان الله عائشة أني من بحي كريم ويري النبي صلى الله عليه وسلم ومضى أشيك أبو بكر الدجيو أبو بكر إمام هالنقض لا إله إلا الله إن للموت لسكرات صوم بجرنا بالبركة يسن رمضان بمرينا بشي لسكدن بدافع يا مرينا بشي إلهي دنبق عفنا يا مرينا بشي ضدك نارت لقى حرينا يا بجرنا وإلهي نصيب نقصو قارسيي قفو البود ذال ما لنتي ذي شنات أيانو كجرنا ما لنتي شنات أيانو مرينا رمضان قوى بالعجيب بضن خير بضن إيمان بضن وحب بضن أو خيرات أهوته كربت ولا ليال si ay sahay noogu noqoto maalinta qiyaamaha laa ilaaha ila allah inna lilmowti lasakaraat wabilaahi tawfiiq wallahu subxaanahu wa tacaala